السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا في سنة ساعات بلدي ولا سلام إنا بقول كي بقول هل كان ما أنت وحنا كسو قد بينا essential oilski أي نكو كلا فايدة سنترنت channel كي كلا عن دين شاقي إنه ما ركتنا access كرين هرواي مركا ودن كبحي مركا فلله الحمد channel عصب أيام فراي كاسو مقعد سلادو حمد naturals marka xamda naturals sidii aad hore uga barateen ba channelkii kale ayaa la idinkaga sii wadin doonaa inaad saliidihii mudaawaadka ahaa oo takhasuskaygu ahaa inaan idinka jaahil saaro wixii iyo isticmaalkooda kalena aan idin sii faahfaahiyo sidii aan idinku wadi jirayba marka maanta hadday inoo bilaabato essential oilska aynu ka hadli doonaa ama mudaawaadka aynu ka hadli doonaa waxa weeye saliidan hadda hortaala la dhaho magaceeda Rose Absolute waxyaalo aad u fara badan ayay qabataa buugag badan ayaana laga diyaariyay dadka mudaaraseeyay maaragtay saliidaha installation-ka ku sameeya qaybta aromatherapy-ga marka laakiin inagu si kooban ayaynu u dul maraynaa maanta biidnillah Rose Absolute horta waxay u fiican tahay markasta horta waxa la dhaho and depression, anxiety, isla hadalka, walwalka markasta way ka siman yihiin saliidahani laan anigu waxaan leeyahay maaha laakiin waa mudaaristoodii iyo dadkii soo bartay iyo dadkii ku takhasusay waxa ay ka qoreen weeyaan buugaag aad u fara badan ayaa laga diyaariyay xanuuno badanna hadda waqtigan xaadirka ay la jooga aad baa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa dadka lagu dajiyaa sida dadka uu kansarka ku dhaco dadka maaragtay waxa la yiraahdo insomnia oo insomnia waxa weeyaan hurdo la'aanta qof hurdana ka imaanaynin hurdadiina rabo sariirta iska joogo hurdo la'aanta adigu nooc kamid ah weeyaan insomnia waana shay xun weeyaan xanuun xun weeyaan marka xanuunkaasna waa lagu daaweeyaa dhanka beauty-ga haddaan uga dhaadhaco dhanka caafimaadka intaa kusoo gaabsado dhanka beauty-ga waxaa laga sameeyaa barfuunada ugu qaalisan catarada spray-ga ee ugu qaalisan barfuunada ayaa horta laga sameeyaa lagu daraa waxaa laga sameeyaa kareema ugu qaalisan ayaa lagu daraa saamuunaha leana saliid aad u udgoon weeyaan aadna u tayo fiican waxay kaloo la dagaalantaa waxa la yiraahdo wrinkleska oo ah jirka wajiga markuu duuduubka galo waxay kaloo iyaduna ay naasibtaa maxalda waxaa la dhaho scratch marks markuu jirku dildilaaco nabraha ku dhasho kale ama qofku hadduu kufo for example qofku markuu kufo nabar baa ku dhalanaya nabarkii meeshaas hadhow way ka baabiinaysaa marka la mariyo waxay kaloo waxa la yidhahdaa insect bites waxa weeyaan haddii kaba soo qaad kaneeca ku qaniinto meeshaad marinaysaa kaneecadii effectigeeda ama allergy ay kugu reebi lahayd alxamdulillah waa kaa baabiinaysaa qofka way ka baabiisaa sidoo aad ka dheehanaysaan waxaa laga yaabaa qaarkood hadda dermatologiga wax yar ka buuxo saliidaha kan inaad waxyaalo maaragtay dhasdhastii ku aragtaan ama wax ku dhegdhegay lianna Soomaaliya markaan aadnay alxamdulillah waxaan u haysanay sidii kiniin oo kale meesha kiniinka laga isticmaalo ayagaan isticmaalaynay qaarkood maaragtay waxaa loo isticmaalaa calaashan any xanuun oo Allah subxaanahu wa tacaala uu soo saaray ama dhakhaatiir iyo dadka saynisyahanka ay og yihiin wuxuu leeyahay waxaad helaysaa essential oilka haddaad industry essential oilka aad gashid waxaad helaysaa nooc naasibo oo maaragtay sidii meeshaad hadda Tylenol ka qaadan lahayd ama Panadol ka qaadan lahayd noocaad aadi kartid oo ka qaadan kartid intaasina waa faa'iido dheeraad ah iska toobigii saliid hadda miiska inoo saaran way ka baxsan tahay laakiin waa mufiid waa faa'iido marka Rose Absolute haddaan dib ugu soo noqdo anti-aging ay la dagaalantaa daweynaanta nabraha dadka ka soo baxa insect bites Allahumma salli ala Muhammad waxaa lagu sameeyaa dadka neefta qaba waxay u furtaa air circulation bay siisaa marka guriga ama lagu daadaadiyo dhibco yar ma maaragtay ama waxaan diffuserka ama human modifierka lagu shido Allahumma salli ala Muhammad waxay kaloo leedahay dhanka xasuusta inay u fiican tahay
collimation maaragtay inay columness qofka inay dejiso oo deganaan dhanka anxiety oo kale haddaan dib ugu noqono inay deganaan siiso dadka walwala dadka habeenkii riyooyinka xun iyo waxaas ay maaragtay soo marka waxa ay ka keenayso qofka maanta dhan isagoo daaglanaa for example isagoo daalanaa maanta dhan habeenkii markaas seexatid qaar fara badan baad galaysaa marka haddaad intaadan seexan ka hor aad dhowr dhibcood oo rose absolute aad ku darsatid biyaha aad ku qubaysanaysid showerkaaga ama baathka maaragtay barkada la buuxiyo intaad biyaha ku dhibdhibcisid dhowr dhibcood oo ayada waa qadar dhowr dhibcood malqacad maaha wuxuu dhowra maaha goojooyin weeyaan dhibco drops markaad dhowr drop ku ridid qofkaas wuxuu seexanayaa hurdo wanaagsan oo aan qaraw lahayn lianna isaga dhan wuxuu gelayaa air circulationkiisa wuxuu noqonayaa air wanaagsan hawadii air wanaagsan buu qaadanayaa blood circulationkiisa sidoo kale isagana wuxuu noqonayaa maaragtay jirka uu kala furfurmayaa relaxi buu qofku dhex gelayaa hawo relaxia oo degan oo maaragtay dadka happy bay ka dhigtaa hurdada marka macaan saas uu helaya wuxuu ka naasibaysaa marka inuu qofkii qaraw iyo daal iyo wixii maanta soo arkay uusan dib maaragtay ula baaranin habeenkii oo dhan marka taasina waa tu kale waa dhanka anxiety-ga qofka markuu ka jiro ama walwal markuu ka jiro ama kaba soo qaad qof waxaa la yiri qof baa kaa dhintay oo kale of course ma aha dee geerida waxaa la xaq dhigama dadka qalad qaar u fahmin laakiin sida laga qoray waa waxyaalaha dadka lagu dejiyo sida nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri talbiina baydiin dardaarmay xadiisiga ku jirta talbiinada oo kale waa nooc cunta oo la cuno dadku markay griefka iyo geeridu ku timaado waxaa laga helaa deganaansho marka waa example siday dadka ugu fahmaan waana example-ka ugu wanaagsan leena wixii nabigeenu yiri haddii aan soo qaadano alxamdulillah maasha allah ma hayhaytoy marka rose absolute iyo saliidaha iyada la midaba marka dhanka anxiety iyo stresska laga eego ayaguna saas oo kale sameeyaan marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan idin leeyahay gunti iyo gunaanadkii videoga short baan kasoo dhigayaa liana waan duway badankooda essential oilska marka waa inaan channelkayga cusub kusoo gudbiyaa oo kii hore kasoo raraa marka gunti iyo gunaanadkii ka faa'iidaysi wacan subscribe gareeya biidnillaah lana share gareeya kana faa'iidaysta wakaasa channelkayga magaciisa waa Xamda Naturals and my Facebook page Hamida Natural Beauty Instagram Hamida Natural Beauty follow them jazakallahu khayrakum barakallah